haddaan nahay guddida arrimaha bulshada ee golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland halkan maanta waxaan ugu yeeray maamulkii dawladda hoose oo uu hogaaminayo madaxweynekii degmada aad iyo aad baan idinka hadnaqaynaa sida aad noo ajiibteen ama noogu timaadeen si aan idinka wareysano wixii dastuurku uu waajib noo siiyay inaan wareysano hay'adaha dawladda waana noo warrameen warka ay noo warrameen insha Allah waxaan gaarsiin doonaa qolihii maadaama uu guddida arrimaha bulshada nahay marka hore waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa xildhibaanada golaha guurtida run ahaantii oo aan ugu nimi iyaga guddida arrimaha bulshada ee golaha guurtida oo gudoomiyahooda fadhiyo iyo xoogayihii golaha guudba waxaan halkan ku falaqaynaynay run ahaantii wax uu dastuurku siiyay oo sharciya run ahaantii waxaan ku wada hadlaynay xeerka sidaa uu idin sheegay sharciguba dhigayo run ahaantii waxa anaga naga horeeyay oo iyaguna halkan la joogeen oo markii hore ka dugteen baarkiiseen wasiirka run ahaantii deegaanka iyaguna ay ka wareysanayeen annagana aan maanta u nimi markii dambe ay si fiican nooga wareysteen si wanaagsan oo sharaf leh oo qiimo leh oo qadarin leh run ahaantii ayaa waxa laaliyo waxay su'aalo naga weydiiyeen oo dhan aan uga jawaabnay meel fiican aan isla dhignay annaga iyo iyagu run ahaantii